soo dhawaada daawadayaal maalin wanaagsan. Halkan waa Som Canada TV. wararka maanta aan idin hayno kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo oo kulan isugu yeeray madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Qoorqoor iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen. dowladda Imaaraadka Carabta oo ka maqsuuday raaligelintii uu siiyay ra'iisul wasaare Roble xildhibaan lagu doortay magaalada Jowhar oo rasaas daqiiqado badan socotay loo riday qarax khasaare kala duwan sababay oo ka dhacay dalka Kenya. intaas waxay ahayn qodobada maanta aan idin hayno kuwooda ugu waaweyn. markana waxaad kusoo dhawaataan iyagii oo faahfaahsan. madaxweyne Farmaajo oo kulan xasaasi ah ugu yeeray Lafta Gareen iyo Qoorqoor. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Qoorqoor ayaa maalin ka hor soo gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana uga sii horeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Lafta Gareen. labada hogaamiye waxay saaxiibadooda iyo dadka la kulmay u sheegeen inay rabaan in si gaar ah ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho. laakiin xog aan ka helino socdaalka labada madaxweyne ayaa waxaa la filayaa in magaalada Muqdisho kulan kula yeeshaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaana la sheegay in labadaasi mas-uul uu u yeeray madaxweyne Farmaajo si uu kulan ula yeesho. doorashada golaha shacabka oo weli socota ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen waxa uu soo dejiyay kuraas lagu dooranayo magaalada Baraawe isagoo ka hortagaya qorshe madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Roble ay damacsan yihiin in doorashada lagu soo koobo hal magaalo. Galmudug ayaa 9 kursi oo golaha shacabka ilaa hadda dooratay. wararka waxa ay sheegayaan in qaar ka mid ah kooxda madaxweyne Farmaajo inay shaki ka muujiyeen sida Qoorqoor u dhigayo kuraasta qaar taasoo shaki ku keentay qorshaha wada shaqeynta labada dhinac. sidoo kale wararka damaca Qoorqoor waayadan daba xoogeystay ayaa dadka qaar waxay sheegayaan in kooxda madaxweyne Farmaajo ay tuhun ka qaadeen. warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo labada madaxweyne kala hadlayo sida madaxweyne Lafta Gareen uu qaadan lahaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya halka madaxweyne Qoorqoorna loo sii lahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya haddii uu xilka kusoo laabto madaxweyne Farmaajo. si walba kulanka wada tashiga Lafta Gareen shaki badan kama qabaan kooxda Farmaajo sidii uu rabay ayay ilaa hadda hawsha u wadaan, balse lama xaqiijin karo waxa kasoo bixi kara heshiiska saddex geesoodka ay leeyihiin saddexda madaxweyne. waxaa sidoo kale wararka ay sheegayaan in dhinacyada ay ka wada hadli doonaan aragti hore miiska u taalay oo awood qaybsiga siyaasadeed. saaxiibada ku dhow hogaamiyaha Galmudug waxay maalmihii dambe bilaabeen inay kor u sheegaan in Qoorqoor damac federaal uu ku jiro, balse musharaxiinta xilka madaxweynaha weli arrintaasi ma aaminsana. qaar ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha oo aan la hadalnay waxaa arrintaasi uu Qoorqoor iyaga albaabka ugu xirayo si Farmaajo kuraasta ugu soo saaro, iyadoo arrintaasi u ekeysiinaya in Qoorqoor uu wato shaqsi isaga gaar u ah. waxaa marna la inkiri karin in Qoorqoor wax uu rabo, laakiin inta ay la eg yihiin waxa uu rabo weli ma cadda ay leeyihiin dadka qaarkood. saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Qoorqoor, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen iyo madaxweyne Farmaajo kulan albaabada u xiran yahay ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho. mana cadda waxa kasoo bixi kara kulankan saddexda mas-uul ay yeelanayaan. dowladda Imaaraadka Carabta oo ka maqsuuday raaligelintii uu siiyay ra'iisul wasaare Roble. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa soo dhaweysay raaligelinta uu bixiyay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalk Soomaaliya. bayaan kooban oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka ayaa lagu sheegay inay muujinayso xiriir taariikhi ah oo labada dal ka dhexeeya. Imaaraadka Carabta waxay soo dhaweynayaan raaligelinta uu bixiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku saabsan dhacdadii bishii Abriil 2018 ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta. dowladda Soomaaliya ayaa bishii Abriil 2018 la wareegtay lacag dhan 9,500,000 oo dollar oo ay lahayd dowladda Imaaraadka Carabta, taasoo dhalisay khilaaf diblomaasiyadeed oo xoog leh. bayaanka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in lacagtii lagu qabtay garoonka diyaaradaha Muqdisho ay hanti loogu talagalay in lagu caawiyo shacabka Soomaaliyeed. hantida lagu qabtay garoonka waxay ahayd gargaar ka yimid dowladda Imaaraadka Carabta laguna taageerayay shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri bayaanka. wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in hindisaha mudane Roble uu ka turjumayo xiriirka qotada dheer ee taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal ee walaalaha ah. hadalka kasoo yeeray dowladda Imaaraadka Carabta ayaa kusoo beegmaya xilli ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu booqasho rasmi ah ku jooga dalkaasi. 7 bishii aan soo dhaafnay ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu raaligelin siiyay dowladda Imaaraadka Carabta isagoo intaas ku daray in lacagtaasi loo celin doono dowladdii lahayd. raaligelinta uu bixiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa ka hor yimid madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qoraal uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8 January ayaa waxa uu gudoomiyaha bangiga dhexe ku amray in khasnada dowladda aan laga bixin karin lacagtaasi la qabtay 2018. madaxweynaha ayaa sheegay in lacagtaasi dalka ay kusoo gashay sifa aan sharci ahayn. waa mamnuuc in go-aan hal dhinaca mas-uul gaaray lagu bixiyo lacagtaasi iyadoo aan loo marin hanaanka waafaqsan shuruucda dalka ayaa lagu yiri bayaanka madaxweynaha. dhanka kale gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Dr. Cabdulqaadir Maxamed Xasan ayaa amray in aan laga bixin karin lacagtaasi bangiga dhexe ee Soomaaliya. sharciga caalamiga iyo lacagta Imaaraadka Carabta sida uu qabo Shawqi Xayir oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah heshiiska caalamiga ah ee Vienna
ee xiriirka diblomaasiyadeed ee la saxiixay 1961 qodobka 27 wuxuu ka hadlayaa qandiga diblomaasiyadeed. qodobkaasi ka hadlaya boorsada diblomaasiyadeed waxaa si toos ah u cadeynaya in waxa kaliya ee boorsada lagu qaadi karo ay yihiin waraaqo iyo dukumentiyo. ujeedadu waxa uu ahaa maadaama xilligaasi uusan jirin xiriir isgaarsiineed. Shawqi waxa uu sheegay in lacagta imaaraadka ee garoonka diyaaradaha lagu qabtay ay ku jirtay qandi diblomaasiyadeed, taasi oo heshiiska Vienna qabo inaan la furi karin lana baari karin. hase yeeshee Shawqi waxa uu qabaa inay jirtay sabab macquul ah oo dowladdu uga shakisay in waxa qandiga ku jira aysan waraaqo ahayn, markii la furayna laga helay lacag dollar ah. Sharciga caalamiga waxa uu qabaa hanti dowladda ay leedahay inaan dowlad kale la dhexmarsiin karin. kaliya hadda Soomaaliya waxa u furan inay hayaan lacagtaasi ilaa laga gaarayo is-afgarad rasmi ah. waxaase dhib u arkaa dowladdii Soomaaliya inay ku kala qaybsatay lacagtaasi. muhiim ay tahay in dowladda ay go'aan midaysan ka gaarto arrinta lacagta, intaas ka horeysan ay adag tahay sidii lacagtaasi hal dhinac uu ugu wareejin lahaa imaaraadka. Shawqi waxa uu qabaa in wasaaradda arrimaha dibadda loo madax banaaneeyo oo iyada la macaamisho kiiskan lacagta si lamida sida imaaraadka yeeleen. dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qarax ka dhacay dalka. ugu yaraan 4 ruux ayaa ku geeriyootay, tiro intaas ka badanna way ku dhaawacmeen kadib qarax lala beegsaday bas ay saarnaayeen dad shacab ah oo marayay koonfurta Wajeer ee dalka Kenya. qarax ayaa noociisu waxa uu ahaa miinada dhulka la geliyo ayaa waxa uu haleelay baskan oo ay saarnaayeen dad shacab ah xilli uu marayay deegaanka Anduki ee koonfurta Wajeer. ciidamo ka tirsan booliiska Kenya oo goobta gaaray ayaa gargaar u fidiyay dadka ku dhaawacmay qaraxaasi. sidoo kale waxay wararka sheegayaan in ciidamada Kenya ay wadaan baaritaan ku saabsan cidda qaraxaasi ka dambeysay. qaraxyada noocan oo kale ayaa waxay kusoo badanayaan waqooyi bari Kenya dhowaan ahayd markii qarax miino uu haleelay gaari bas ah oo kusii jeeday magaalada Mandera, waxaana ku dhintay 13 ruux halka tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen, waxaana qaraxaasi sheegtay ururka Al-Shabaab. daawadayaal intaasna waxaan kusoo gabagabeynaynaa warkii aad kala socoteen Som Canada TV. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar channelkeena. mahadsanid.